dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhaweed xaqiijisay in la diiwaan geliyay 35 xaaladood oo xanuunka coronavirus ah 24 saacadood ee u dambeeyay. Xaaladaha cusub ee dowladda Soomaaliya shaacisay ayaa 32 kamid ah waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, halka 3 kalena ay maanta shaacisay Somaliland, walow ay maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen guddida ka hortagga iyo wacyigelinta xanuunka coronavirus ee Somaliland. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abuukar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee arrimaha coronavirus-ka ku sheegtay in xaaladaha maanta soo kordhay ay tirada guud ee dadka laga diiwaan geliyay ka dhigan tahay 60 xaaladood. 52 kamid ah bukaanada xaaladooda caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay, waxa ayna ku karantiilan yihiin guryahooda. 3 kamid ah waxa lagu baxnaaninayaa isbitaalka Damartini iyadoo qofka kale uu ku jiro xarun caafimaad oo ku taala Xalane. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abuukar Nuur waxay ugu baaqaysaa dadku inay guryahooda joogaan haddii aysan jirin arrimo muhiim ah nolosha, dadkuna ay kala fogaadaan ugu yaraan 2 mitir, taxadar gaar ahna la siiyo dadka da'da iyo dadka qaba cudurrada kale. Wakaaladda wararka ee Sona ayaa goor dhaweed shaacisay warkani. shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga eDahab.